inaad gacantaada adigu ku dishay cabdi sheekh cali inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay maxamed nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay cabdulqaadir cali iidle iyagoo ahaa wariyayaal 4 ka mid ah isku meel aad ku dishay radio muqdisho eedaynta maxaa kaga jawaabaysaa dabcan bismillahi raxmaan raxiim waxaan malaynayaa inaad dhegaysatay live-kii aan xala soo galay waxaan kaloo malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arrintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu caddaynteeda soo daba dhigo arrintaasi aniga dhinacayga sidaan xalaba u yiri wax ka jira male marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan uu isaaniyaa waystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcadeeda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay 5 shakhsi oo la sheegay oo magacyadooda aan kuu sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan kuu sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaad dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meelaad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan kuu sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawow wariye fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo gelaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaha wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sida aan u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaato inaan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxaan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihin caddayn baan u haynaa inaan ku weydiiye keliya un baad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka bini aadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac kaga daba gasho waad fahmi karaa waxay tahay micnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taasaan galno waa hagaag waa u imaanaynaa calanka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yidhi anugu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagayaa una sacabinayaa garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamay tayda igu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay سؤالي ويدي سؤال شباب كذا جواب لكن نمكان وحن بروباغندا دي عندنا كسي ودا I'm not stupid وفهم كلام واحد listen I don't think you're stupid at all I don't think you're stupid I'm not let us make no سؤال توسي ويدي you know قالها نمكان قالها you playing to the hands of the enemy macna waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject waxaad ku ciyaaraysaa aniga inaad wali ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaray aniga sharafteyda su'aal toos waa la yaqaan su'aasha hadda su'aal ku weydii ask me question hold on lecturing kugu ma iman moogta inaad su'aal weydiisan kugu imid listen if
anuu lecture dadka ba uguma imaado adaa dadka lecture gareynayo marayo calanka ka hadlayay markaan waraysigan kaa ogolanay fitaax markaan waraysi kaa ogolanayay waxaan aqaanaa angalka siyaasad ahaan ee ku saabsan calanka ee aad ka soo jeedo waxaan ogahay inaad difaacanaysa calanka waad caddaysa hadda markaad bilaabaysid kanwi ma uga hadli karnaa si civilized ah oo fikirkayga adoo ga dhigsa adoon isku dayin macnaha inaa disrespect igu samaysidoo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tirahdid nimankaan saalin ha ku celcelinin I don't want that because inaa ku celcelisid micnaheedu waxa weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana kaa yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno letas waa weydiye su'aal waa kaaga jawaaba su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine marka hore waxay ku fiican tahay waxaad tiri educated man baan ahay oo academic ah and I respect that anigu magacaagana kuma ciyaarinin inaan ku ciyaarana diyaaru ma ihi waxaan ku weydiinayaa guuxa bulshada oo keliya adna inaad ka jawaabto alxaq leedahay haddaadan ka jawaabina waa ka gudbaynaa now waxyaalaha kale ikaad cami waa hadashay oo ku dhageystay awe aqoontii naashadii what is the problem No, the problem is, you know, the problem is, have a share, صاحب ترتيب حوش الرصع. Problem كله جاي. وحاسكو ديوسا إن هاد أنجل كاغا سياسة دا أنيجا شكله نقصي ديريسي. أو ساس بالي. Ask me questions. معنا ماش موي معنا. هذا مستوى كلها لكن أيست. هاي ويدي سؤال. Go ahead سؤالي ويدي. Fine. marka adigu hadlaysay waxa soo qaadanaya waxa adigu tiri waa la yiri iska daa waxa tiri 2 milyan ayaa la ii ballan qaaday inaan qaato oo arinta calanka joojiyo yaa 2 milyan ku ballan qaaday waxay imaanaysaa maalinta oo baaritaankaas u yimaado ayay imaanaysaa arintaas inaan ka jawaabo hadda maya Soomaaliya ku ballan qaaday hadda ma ka jawaabayo su'aashaas waxaad broadcast-kaaga ku tiri dowladda Soomaaliya agaasimay ii ballan qaaday inay 2 milyan isiiso ma ka noqotay arintaas oo dhan maaha and in fact waxaad samaynaysaa hadda statement oo qalad oo aanan dhihin aniga ma dhihin dowladda Soomaaliya ii ballan qaaday okay maya arintaas waxay ku jirtaa social media qofka u baahan halkaas uu ka dhageysanayaa su'aal haddaad qabtid weydii fine inaad ka jawaabtid ma doonaysid waxaad kaloo ku tiri broadcast-kaaga adigu aad live-ka u soo gashay waxaad tiri waxa ii heshiiyey BBC-da wariyaal ka shaqeeya iyo dowladda Talyaaniga hay'ad u shaqeysa maxaad ku cadeynaysaa wariyaasha BBC-da gaar ahaan kuwa Soomaalidu inay adiga ku cadeynaysaa Fitaax waxaan u maleynayaa at least inaad xoogaa leedahay some sort of civilized manners su'aalaha qaarkood waxa la isku weydiiyaa meelaha qaarkood hadda waqtigan xaadirka wixii proof iyo cadayna oo loo baahan yahay ama wax lagu cadaynayo waqtigeedii lama joogo goobteedii lama joogo waxaad igu marti qaaday programkaaga inaad su'aalo i weydiiso not inquisitive maxkamadna ma saarni so please can we move on hore ma uga socon karnaa su'aali weydii fine hore u soconayna adaan ku raacaya okay waxaad ku tiri broadcast-kaaga 230,000 ayay dowladda Mareykanku jaamacad iga bixinaysay maxaad baranaysay oo 250,000 oo u dhiganto 169,000 oo giniga sterlinka today sarif aad ku baranaysay maadada noo sheeg adoo maad mar kale waxaan rabaa waxaad isticmaalaysaa hostile manners you're attacking me معناها معنيه ما إن ربنا كجواب لكن وحن ربنا إنهم كدرينسيو إن فهمسناهاي وحد كم تهاي أما هذا إيه موقته إن قيب كتهاي إن دتك كفر أحسن إن أنيجا مجاعيجا لدامج كريم سؤال هذه ويدين وسؤاله investigation وسؤاله محكمة وسؤاله بايتان سؤاله السوشيال ميديا أما ميديا لو جواب معها I'm not under investigation قفي بارا ملها so كم جوابها سؤالها وحن روائري qofkii u baahan baaritaan iyo research markeeday tagaysaa laakiin waxaad ii wacday oo adii marti qaaday inaad calanka wax iga weydiiso asagaad aaminsan tahay waxaan ku ogolaada fursaddan isku day inaad difaacdo ha ku wareegin meel kale waa gartay may anu calanka maba difaacay anu waxaan soo bandhigayaa the other side of the argument anu waxaan ahay neutral laakiin when it comes to the flag I respect that calan 150% and waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan jecelahay idil qaado Sufyano
arrinta sababtaan ku weydiinayo 230,000 dowladda Mareykanku waxay kaaga bixisay waa hadalka adigu u dhigtay jaamacad sarreysa ee jaamacadaha dunida ugu sarreeya waxaa ka mid ah Harvard University oo Mareykan ku taala highly respected maadada ugu badan $50,000 weeye Cambridge University Oxford University waxaan ka hadlaynaa 12 maan ka hadlaynaa markaan eegay jaamacaddii adigu aad dhiganayso adigu aad afkaaga iiga sheegtay soo baartay waxay ii sheegeen maado 230,000 lagu barto inaysan jirin ujeedadaan ku weydiinaya saasay ahayd adig kuma weeraraynin inaan ku weeraro diyaar uma ihi inaan ku weeraro igama mudnid aqoon kuuma lihi xumaan kuuma qabo cuqdad kuuma qabo dhibaato imaada geysanin laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxa jira that is how I work that is how I roll inaad adigu Sufyaan Sheekh Axmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan xasan gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xange inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheekh Cali inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabduqaadir Cali Iidle oo ahaa wariyayaal afar ka mid ah isku meel aad ku dishay radio Muqdisho أنت محكي جوابي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan malaynayaa inaad dhegaysatay live-kii aan xala soo galay waxaan kaloon malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arrintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu caddeynteeda soo daba dhigo arrintaasi aniga dhinacayga sidaan xalaba u yiri wax ka jira male marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan uu ii saaraya waystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcadeeda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay 5 shakhsi oo la sheegay oo magacyadooda aan ku sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan ku sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaa dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meel aad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan ku sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawow wariye Fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallimaanahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo galaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhantahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaa wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sida u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaato inaan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxa aan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihiin caddayn baan u haynaa inaan ku weydiiye keliya un baad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka bini aadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac ka doon gasho waa fahmi karaa waxay tahay macnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taasaan galno waa hagaag waa u imaanaynaa calanka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yiri anugu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagaya una sacabinaya garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamtayda ugu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan
nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay broadcast-kaaga xalayto عبد الفتاح سؤالي ويدي لك سؤالي ويدي سؤال شاب وكاك جواب لكن ما كان وحن بروباغندا دي ادنا كسي ودا I'm not stupid وفاهم كلام واحد listen I don't think you're stupid at all I don't think you're stupid I could be let us make no سؤال توصي ويدي ما اسمع you know وقال لها نمن كان you playing to the hands of the enemy macna waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject waxaad ku ciyaaraysaa aniga inaad wali ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaray aniga sharafteyda su'aal toos waa la yaqaan su'aasha hadda su'aal ku weydi ask me question hold on lecturing kuguma imaan moogtaa inaa su'aal weydiisan kugu imid listen if anuu lecture dadka ba uguma imaado adaa dadka lecture gelinayo marayo xalanka ka hadlayay markaan waraysigan kaa ogolanay fitaax markaan waraysi kaa ogolanayay waxaan aqaanaa angalka siyaasad ahaan ee ku saabsan calanka ee aad ka soo jeedo waxaan ogahay inaad difaacanaysa calanka waad cadaysa hadda markaad bilaabaysid kan we ma uga hadli karnaa si civilized ah oo fikirkayga adoo ga dhigsa adoon isku dayin macnaha inaa disrespect igu samaysidoo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tirahdid nimankaan saalin ha ku celcelinin I don't want that because inaa ku celcelisid micnaheedu waxa weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana kaa yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno leres waa ay weydiye su'aal waa kaaga jawaab su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine marka hore waxay ku fiican tahay waxaad tiri educated man baan ahay oo academic ah and I respect that anigu magacaagana kuma ciyaarinin inaan ku ciyaarana diyaaru ma yihi waxaan ku weydiinayaa guuxa bulshada oo keliya adna inaad ka jawaabto alxaq u leedahay haddaanan ka jawaabin waa ka gudbaynaa now waxyaalaha kale ikaad cami waa hadashay waa ku dhegaystay awe aqoontii raashadii what is the problem No, the problem is, you know, the problem is have a share صاحب ترتيب حوش problem problem كله yahay waxa isku dayaysaa inaad angalkaaga siyaasadda aad aniga sheekadan ugu sii dheeraysid oo ah saas baa weydiin ask me questions macna meesha muu imaanaya haddaad aamusid oo ku wadaha laakiin aysid may hay weydii su'aal go ahead su'aali weydii fine marka adigu hadlaysay waxaad tiri waxaan soo qaadanaya waxaad adigu tiri waa la yiri iska daa waxaad tiri 2 milyan ayaa la ii ballan qaaday inaan qaato oo arinta calanka joojiyo yaa 2 milyan ku ballan qaaday waxay imaanaysaa maalinta oo baaritaankaasi u yimaado ayay imaanaysaa arintaas inaan ka jawaabo hadda maya Soomaaliya ma ku ballan qaaday hadda ma ka jawaabayo su'aashaas waxaad broadcast-kaaga ku tiri dowladda Soomaaliya agaasimay ii ballan qaaday inay 2 milyan isiiso ma ka noqotay arintaas oo dhan maaha in fact inaad adigu Sufyaan Sheekh Axmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan Xasan inaad gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xange inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheekh Cali inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabdulqaadir Cali Iidle oo ahaa wariyayaal 4 ka mid ah isku meel aad ku dishay radio Muqdisho eedaynta maxaa ka jawaabaysaa dabcan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan malaynayaa inaad dhageysatay live-kii xala soo galay waxaan kaloo malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arintaas iyada ahi waxa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu cadeynteeda soo daba dhigo arintaasi aniga dhinacayga sidan xalaba u yiri wax ka jira mala marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan uu yisaaniyaa waystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcadeeda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay 5 shakhsi oo la sheegay oo magacyadooda aan ku sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa
inta aadan jawaabin waxaan kuu sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaad dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meel aad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan kuu sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawow wariye fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo gelaysid waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaha wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sida aan u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaato inaan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxa aan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihin caddayn baan u haynaa inaan ku weydiiye keliya unbaad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka bini aadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac kaga daba gasho waad fahmi karaa waxay tahay macnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taasaan galno waa hagaag waa u imaanaynaa calanka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yidhi anugu muwaadin soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagayaa una sacabinayaa garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamay tayda igu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay su-aali weydii su-aashaad waa kaga jawaaba laakiin nimankan waxaan propagandadii aa dhinac ka sii wadaa I'm not stupid waa fahmi karaa waxaad ka wadi Listen, I don't think you're stupid at all. I don't think you're stupid. I'm not let us make no سؤال توصي ويدي you know you play into the hands of the enemy macnaha waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject waxaad ku ciyaaraysaa aniga inaad weli ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaray aniga sharafteyda su'aal toosa waa la yaqaan su'aashaan hadda su'aal ku weydii ask me question hold on lecturing kuguma imaan moogta inaad su'aal weydiisaan kugu imid listen if anuu lecture dadka ba uguma imaado adaa dadka lecture gelinayo ka hadlayay markaan waraysigan kaa ogolanay fitaax markaan waraysi kaa ogolanayay waxaan aqaanaa angalka siyaasad ahaan ee ku saabsan calanka ee aad ka soo jeedo waxaan ogahay inaad difaacanaysa calanka waad caddaysa hadda markaad bilaabaysid kanwi ma uga hadli karnaa si civilized ah oo fikirkayga adoo ga dhigsa adoon isku dayin macnaha inaa disrespect igu samaysid oo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tirahdid nimankaan saalin ha ku celcelinin I don't want that because inaad ku celcelisid micnaheedu waxa weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana kaa yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno leres waa weydiiyo su'aal waa kaaga jawaab su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine marka hore waxay ku fiican tahay waxaad tiri educated man baan ahay oo academic ah and I respect that anigu magacaagana kuma ciyaarinin inaan ku ciyaarana diyaaru ma ihi waxaan ku weydiinayaa guuxa bulshada oo keliya adna inaad ka jawaabto alxaq u leedahay haddaadan ka jawaabina waa ka gudbaynaa now waxyaalaha kale ikaad cami waa hadashay oo ku dhageystay awe aqoontii naashadii what is the problem No, the problem is, you know, the problem is have a share, صاحب ترتيب. How shall the problem
فتاح problem كوحو يهي وحا اسكو دايويسا inaad angalkaaga siyaasadda aad aniga sheekadan ugu sii dheeraysid oo saas baa la weydiin ask me questions macnaha meesha muu imaanina haddaad aamusid waa ku wadaha laakiin aamaysid may hay weydii su'aali weydii fine marka adigu hadlaysay waxaad tiri waxaan soo qaadanaya waxaad adigu tiri waa la yiri iska daa waxaad tiri 2 milyan ayaa la ii ballan qaaday inaan qaato oo arrinta calanka joojiyo yaa 2 milyan ku ballan qaaday waxay imaanaysaa maalinta oo baaritaankaasi u yimaado ayay imaanaysaa arrintaas inaan ka jawaabo hadda maya Soomaaliya ku ballan qaaday hadda ma ka jawaabayo su'aashaas waxaad broadcast-kaaga ku tiri dowladda Soomaaliya agaasimay ii ballan qaaday inay 2 milyan isiiso ma ka noqotay arrintaas oo dhan maaha and in fact waxaad samaynaysaa hadda statement oo qalad oo aanan dhihin aniga ma dhihin dowladda Soomaaliya ii ballan qaaday okay maya arrintaas waxay ku jirtaa social media qofka u baahan halkaas uu ka dhageysanayaa su'aal haddaad qabtid weydii fine inaad kama ka jawaabtid ma doonaysid waxaad kaloo ku tiri broadcast-kaaga adigu aad live-ka u soo gashay waxaad tiri waxaa ii heshiiyey BBC-da wariyaal ka shaqeeya iyo dowladda Talyaaniga hay'ad u shaqeysa maxaad ku cadeynaysaa wariyaasha BBC-da gaar ahaan kuwa Soomaalidu inay adiga ku cadeynaysaa فتاح waxaan u maleynayaa at least inaad xoogaa leedahay some sort of civilized manners su'aalaha qaarkood waxa la isku weydiiyaa meelaha qaarkood hadda waqtigan xaadirka wixii proof iyo cadeyna oo loo baahan yahay ama wax lagu cadeynayo waqtigeedii lama joogo goobteedii lama joogo waxaad igu marti qaaday programkaaga inaad su'aalo i weydiiso not inquisitive maxkamadna ma saarni so please can we move on hore ma uga socon karnaa su'aali weydii fine hore u soconayna adaan ku raacaya okay waxaad ku tiri broadcast-kaaga 230,000 ayay dowladda Mareykanku jaamacad iga bixinaysay maxaad baranaysay oo 250,000 oo u dhiganto 169,000 oo giniga sterlinka today sarif aad ku baranaysay maadada noo sheeg adoo maad mar kale waxaan rabaa waxaad isticmaalaysaa hostile manners you're attacking me معناها معنيها ما إن ربنا كجواب لكن وحن ربنا إنهم كدرينسيو إنهم فهمسناهاي وحد كم تهاي أما هذا إيه موقته إن قيب كتهاي دتك كفر أحسن إن أنيجا مجاعيجا لدامج كريم سؤال هذا ويدين وسؤاله investigation وسؤاله محكمة وسؤاله بايتان سؤاله social media أما media لو جواب معها I'm not under investigation قفي بارا مالها so كم جواب سؤالها محاني روائري qofkii u baahan baaritaan iyo research markeeday tagaysaa laakiin waxaad ii wacday oo adii marti qaaday inaad calanka wax iga weydiiso asagaad aaminsan tahay waxaan ku ogolaaday fursaddan isku day inaad difaacdo ha ku wareegin meel kale waa gartay may anu calanka maba difaacay anu waxaan soo bandhigayaa the other side of the argument anu waxaan ahay neutral laakiin when it comes to the flag I respect that calan 150% and waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan jecelahay idil qaado Sufyaano arrinta sababtan ku weydiinayo 230,000 dowladda Mareykanku waxay kaaga bixisay waa hadalka adigu u dhigtay jaamacad sarreeyay ee dunida jaamacadaha dunida ugu sarreeya waxa kamid ah Harvard University oo Mareykanka ku taala highly respected maadada ugu badan $50,000 weeye Cambridge University Oxford University waxaad ka hadlaynaa dhowr iyo 10 ma ka hadlaynaa markaan eegay jaamacaddii adigu aad dhiganayso adigu aad afkaaga iiga sheegtay soo baartay waxay ii sheegeen maado 160 inaad adigu Sufyaan Sheekh Axmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan Xasan inaad gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xanke inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheekh Cali inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabdulqaadir Cali Iidle oo ahaa wariyayaal 4 ka mid ah isku meel aad ku dishay radio Muqdisho inta maxaa ka jawaabaysaa طبعا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maleynayaa inaad dhageysatay live-kii aan xala soo galay
waxaan kaloon malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arrintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu caddaynteeda soo daba dhigo arrintaasi aniga dhinacayga sidaan xalaba u yiri wax ka jira male marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan lagu yisaaniyaa waystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcadeeda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay 5 shakhsi oo la sheegay oo magacyadooda aan kuu sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan kuu sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaad dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meelaad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan kuu sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawow wariye fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo gelaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaha wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sida aan u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaato inaan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxaan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihin caddayn baan u haynaa inaan ku weydiiye keliya unbaad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka bini aadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac kaga daba gasho waad fahmi karaa waxay tahay macnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taasaan galno waa hagaag waa u imaanaynaa calanka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yidhi anugu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagayaa una sacabinayaa garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamay tayda igu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay سؤالي ويدي سؤال شباب كذا جواب لكن نمكان وهم بروباغندا دي عندنا كسي ودا I'm not stupid وفهم كلام واحد listen I don't think you're stupid at all I don't think you're stupid I'm not I could be let us make no سؤال توسي ويدي you know قالها نمكان قالها you playing to the hands of the enemy macna waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject waxaad ku ciyaaraysaa aniga inaad wali ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaray aniga sharafteyda su'aal toos waa la yaqaan su'aasha hadda su'aal ku weydiin ask me question